halkan ku haynaa gabar cad oo dhalinyaro ah oo suubiso $50,000 iyo ka badan isbuuci. I made $45,000 in 1 week selling my jars of farts. Waxay ku suubisaa wax kala ma ahan, waxay iibisaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولالكين يابستوني فوقوني له ورهيا أديقا هالكان وحاكوها هنا وحكالا معهن وحاواي the funniest video of TikTok اسبوعان بلو حاربنا إنا ماشان صوبان ديقو إني كان أداوتين حاسو قادنا حتى داد أجنبية سو قادني وحاسو قادنا صومالي وحول بيكو دي جران مر وحان وحاواي وحاني إيجابي وحاني إيجابي وحالغيابا إني كان إيجابي waxaa halkan ku haynaa gabar cad oo dhalinyaro ah oo suubiso $50,000 iyo ka badan isbuuci. I made $45,000 in 1 week selling my jars of farts. waxay ku suubisaa wax kala ma ahan, waxay iibisaa dhuusadeeda. She was charging $1,000 per jar. The proof is in the pudding. Look at that. You are welcome. But had to stop because of a health scare. She ended up at the hospital thinking she's having a heart attack. But turns out it was her diet of beans, protein muffins and eggs that made her feel intense gas pains. Those were the key ingredients to making her farts as smelly as possible. But now that she's retired from... Okay, waa aragnay. waxay cuni jirtay cuntooyinkan kala nooc cuni jirtay ukunta oo kale beebasheeda oo kale maafanka oo kale wixii oo dhan waxay cuni jirtay sidee bahasheeda qurunbaas u yeelatay u gadmata markay okay wixii oo dhan ka kaale markay doctorka u tagtay doctorku wuxuu dhahay aariyo badan ka baxdo intay bini'aadamka ka bixin ka badan ka baxdo xanuuno waaweyn ku soo socdo marka maadaama wixii caafimaadkeeda ka fikirtay waxay suubisay inay joojiso laakiin waxay ku bedelatay farting. She's planning to release her own fart scented candles. waxay suubisaa marka waxay rabtaa marka shirkad waxay rabtaa oo shumac inay suubiso shumacyaal waxa jiro guriga carfiso kuwa strawberry kuwa vanilla laakiin ayada waxay suubinaysaa shumac oo dhuusa ah taasna waa wax la yaab leh marka fadlan commentigaada waa inoo muhiim hoos noogu soo qor marka mideeda kale meeshan waxa ku haynaa gabar Soomaali oo waxa way baranka ay ku suubinay wadada dhexdeed gabar kale ay ku suubinay waxay leedahay maanta bal xoogaa waxa dhiig iyo waxa ka socdo waxna way ku daadinay qoftii shucaac ay qaadeen marka bal maxay la kulantay maxayna ka dhaxda marka arintaasna warka ma haysid dhiiga ka socdo musku jeedid miya ya dhiiga fiiri qaabay dhiiga fiiri waxaan dhiiga fiiri ma cabsanaysid suuqa ku soo baxaysa saad الله باي ما عبوا waxaan ما انت هذا سي يعني ta gabar weenaatay maxaasan cunug yariis ma yihiin si khaldanayo ma aqaani goortii ku xanuunkiisa waa dareemaa dhiiga waqtigiis ma ka siisid miyaadi bilooyinka waqti dhiigi maada jir ma taqaanin maxaa weynaysa marka hadda ma oyna xanuunka iga batay ma ogeen istaal ma aadid qof weenaatay maxaa la rabaa ina amaarta data oo hagagsatid maxaa la time table amal waqti sameysatid waqtigan dhiiga imaado waqtigan imaado ciyaal ma ihid ya waa ogahay laakiin abay si wuxuu iga dhacay gabar tahay way waa ku fahmi karaa taasab ku leeyahay maxaa ka qeyso mar alag si waqtigu oo heenu ka imaanayo farkee way yaabeen muslim saanda ku xiro muslimku kulliya badnihiin dadka dhan way kulliya badnihiin waxay taagantaa muslimkiya kula yaab anako daawanayna la yaaban waa barankii lagu sheega waa inda sarcad adoo waxna ogeyn Allah gishana ma fahamtay marka maxay kula tahniyow gabadhan oo masaakiinta waxa lagu suubiyay ayada waxna ogeynin waxa la dhahay waliba timetable suubiso ayada waxay u egtaa qof waxna ogeynin ma fahamtay marka yaa qaldan yaana saacsan yaana barankii lagu suubiyay yaan lagu soo ben commentigaada waa inoo muhiim mar kale abtiliibaan oo la dhahay $25,000 miiska lagu saaraa ilhaan cay bal arintan muxuu ka dhahay marka gabadha ilhaan cumar $25,000 baa miiska la soo saaray lagu yiraahday cay $25,000 na qaado 25,000 ka sheekeynaysa $25 milyan gabdhaha kaarmeel joogo u ceen maayane marka la dagaalsan tahay oo dad raabta inaa ciisid umadaha dhan jaaifaysan maha umadaha dhan inaa ciisan maha business leeda magaalada joogta dhan Soomaali Maxamed oo dhan baa raashinka ku ladan gabdhaha ku ladan wiilasha ku ladan caruurta ku ladan everybody ku ladan family oo dhan ku ladan wixii inaan ogeyn
mideeda kale waa maqashay abtaliibaan wuu diiday war dhol bilyan ama milyan hadaa liisii oo dhaxataa niyo macaynay mideeda kale ayaantan waa aragteen waxa ka socday xoogaa barnaamij asiga oo abuursaday oo dhahay dad baa cunto siiya wixii baa lagu haystaa lacagihii wixii problemkan oo isbuucan oo dhan oo socya waxa u maleynaa inaan ka soo hadli doono taas arintaasna mideeda kale waxa meeshan ku haynaa waa the last video aan la yaabay waa washing machine oo dhagaxyaal lagu shubay bal maxay kula tahay washing machine kan ma dhaqi doona dhagaxyaashaas mise wajijabi doona وكسي ولا درعي ولا وكسي شبوية وجدين ما دحيا كسر دعي باشا يا زراوة ولي مشين جوا ما هو إكوا ليدين صومالي وملينا حق بدنا بيرد على قليل مركان بروا وين ولا بشبوية وليوا مشين كمية لو يصير الجراب Sono espressive. والله ما قدك عقالي كان سلالة برو كجبل ودمروا وججوا خلاص مستبع عادي ما هن دتكم وادد درجوا مركز دد waxaan ku dhedheelaa waa dad dhargay ma ogaan laakiin inay dad kale waxaan kale u baahin dad gacanaha ku dhaqdo dad lugooda wax ku dhaqaan okay intaasna waxay noo ahayd fiidiyoyaasha oo isbuucaan noo ahayd bal waxa isku dayaynaa fiidiyoyaal badan inaan soo gelgelino oo ininkana noola daabatiin anakana wixii naga yaabay inay soo bandhigna marka fadlan channelka daa ku cusub tahay like sub gambaleelka noo taabo video kasto qeyladiisa dhibaaqiisa soo ku soo gaaro hadaa hore u joogtan aad iyo aad u mahadsan tahay haddana waxaan ku leeyahay stay safe stay clean nabadgelyo